السلام عليكم ورحمة الله وبركاته casharkeeni inoo sii socday baynu sii wadaynaa waxaynu soo sameynay bahalkeena waxaan kasoo dhignay setup haddana waxaynu samayn doonaa login formkii password iyo username baynu samayn doonaa ugu horreyn waxaynu create garaysan doonaa ama aynu abuuran doonaa table cusub dana isla tablekaasi waynu save garan doonaa waxaynu bixin doonaa login okay markaan login u bixino tablekeena ayaa waxaan samayn doonaa designkiisa ayaynu bedeli doonaa waan design garan doonaa waxaanu bixin doonaa username kana waxaanu bixin doonaa waxa la soo gelin doonaa short text iyo password okay passwordka markaan intaas samayno waxaan doonaynaa passwordkeena in halkaas stars ay soo baxaan yani hal tolo qoraal caadi inoo soo bixin input maskigaas aan tegi doonaa halkaa airplane soo furi doonaa okay tableka save garay buu ku leeyahay okay deedna waxaad samaynaysaa password baad ka dhigi doontaa next then finish baad oran doontaa then waad save garan doontaa then waxaad oran doontaa close then waad inoo sii gelin doontaa waxaanu gelin doonaa admin isla halkan waxaanu gelin doonaa admin okay then markaanu save garayno waxaanu abuuri doonaa form baynu abuuri doonaa formkeena markaanu saa usoo abuuro waxaan soo qaadan doonaa text box baynu soo qaadan doonaa halkaasaan dhigi doonaa okay text boxkeena markaan halkaa dhigno halkaa waxaanu u bixin doonaa username okay kana waynu soo qaadi doonaa waynu hor dhigi doonaa control c baynu oran doonaa control v waynu soo qaadi doonaa waxaanu u bixin doonaa password deedna fartan waxaanu ka dhigi doonaa bold isla markaasina midabkeeda waxaanu ka dhigi doonaa midow kana sidoo kale black baynu ka dhigi doonaa waynu bold baynu ka dhigi doonaa fartan waxaanu ka dhigi doonaa ilaa 16 kana waxaanu ka dhigi doonaa ilaa iyo 16 deedna halkan aynu ka weyneyn doonaa username control p okay dana inta markay saa tahay robertskeen eegi doonaa kaa waxaa inoogu qoran text 1 baynu u bixsan doonaa okay kana waxaanu u bixsan doonaa 2 okay then waxaan soo qaadan doonaa button baynu soo qaadan doonaa halkaan dhigi doonaa buttonka waxaynu ula bixi doonaa login okay markaan buttonkeena login u bixino waxaan samayn doonaa waxaan aadi doonaa qaybta codingka ayaan tegi doonaa loginkeena ayaynu code garayn doonaa then halkan general combo boxkeena ayaan soo dooran doonaa then halkaas waxaan doonaynaa inaynu ku paste garayno codekii aynu sii diyaarsanay okay codekii waynu ku paste garayn doonaa halkana waxaanu gashan doonaa text 1 halkan waxaanu gashan doonaa text 2 okay waxaa laga soo eeg halkaas waa passwordkii iyo usernamekii oo laga soo akhrisan doono login tablekeena okay dana main form ma lihin inagu wax main form ah halkaas kuma haysano waxaanu if haddii text boxkeena oo usernameka uu leegyahay yani marka loo eego passwordka iyo loginka ku jira usernameka iyo text boxkeena dana waxaad samaysaa waxaad noo furtaa main form marka main form maynaan samaysanin dana haddii intaas samaysmi waayaan waxaad noo soctaa error message iyo usernameka iyo passwordka uu khaldan yahay halkaa horta waxaanu soo xiri doonaa end if maadaama halkaa if ka soo furay endiga halkaasaan ku dhamayn doonaa markaan intaas samayno
waxaan doonayaa inaan main form samaysano dana main form saynu samaysano waxaynu ku bedelan doonaa main formkeena inagu customer tablekaasaynu customer formkaasaynu ku bedelan doonaa okay waxaan doonaynaa marka usernameka iyo passwordka la geliyo in customer formkaasi inoo soo baxo okay dana waxaan samayn doonaa isla meesheenii baynu ku noqon doonaa halkan ayaynu odhan doonaa waan doonayaa inaan ku paste garayno dana customerka formkeeni halka inoo yaalla ayaynu soo dhigan doonaa dana bal waynu save garayn doonaa waxaanu formkeena u bixin doonaa login form dana okay baynu odhan doonaa kanna waynu isku xidhi doonaa okay marka waynu xidhi doonaa close all baynu odhan doonaa keenana aynu saa odhan doonaa waa customerkaasaynu doonaya in hadhow inoo soo baxo haye login formkeena aynu tegi doonaa waxaynu gelin doonaa admin deedna markaynu password ka tagno wuxuu inoo soo gelin error usernamekaaga iyo passwordkaaga mid baa khaldan okay deedna halkan waxaynu gelin doonaa admin okay marka waxaan soogaynaa in login formkeenaas inoo soo baxo markaynu halkaa login siino login okay saas marka adoo hadhow talo waxaad ku xidhanaysaa main menugagaad ku xidhanaysaa main menugaaga yacni meesha aad khaanadahan sii dhigan doonto customerkan aad main menu sii samayn doontaa main menugaasaad ku xidhi doontaa